اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوديوهان قلبت waxaan u soo fadhiistay inaan wax ka iraahdo magaalada Muqdisho iyo deegaankeeda ku hareeraysan sidii loo degan yahay, sidii loo deganaa jiray, sidii loo kala horeeyay, taariikh sidee tahay inaan ka sheekeeyo oo dadka aan la sheer gareeyo ayaa galabta halkaan u imid. mana rabo umana imaan inaan ka been sheego. waxa aan ku hadlayno waa dokumentigaas ayaan rabaa inaan ku hadlo oo aan ka hadlo sidii ay tahay iyo sida uu yahay xaaladda. dokumentigan wuxuu sheegayaa 1913 magaalada Muqdisho waxaa yimid nin Talyaani ahay magaciisa la dhihi jiray Dr. Jasperini. ninkaas doorka ah qoraan uu ahay markii dambena gobolka asagaa ka noqday gobernatore. shuruucda lagu dhaqmaayo badankeedna waa taariikhda la dejiyey oo la iska dhaxlay. laakiin qoraalkiisa wuxuu ka soo bilaabay magaalada Jowhar oo la dhihi jiray waagaas Village Duca amba Villa Bruce. saasaa la dhihi jiray. taariikhdaas waa 1992 ilaa 1993. Dr. Jasperini qoraalkiisa wuu sii dhaafiyey ilaa ceel wareegow ilaa meel walbo ayuu gaarsiiyey. naqshadna wuu ka sameeyey. naqshadana waa taas. waxaa naqshada kaloo ku lifaaqan qoraal oo ku qoran luuqadda Talyaaniga ayaa ku qoran oo 3 page ka kooban kana hadlayo qabaa'iladii markaas oo wax qorayo oo ugu yimid gobolka Banaadir. markaas dadkii deganay oo ugu yimid ayuu ka hadlayaa qoraalkan. sida dokumentiga ku cad dokumentigana asalkiisa waxaan ka keenay aniga iyo Allah u naxariistay malaaq shoore malaaq colow iyo kaloo hadda dhintay wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga ee Rome. waa yaallaa meel walbuu yaallaa, xamar uu yaallaa, meelo badan oo u qaybnan wuu yaallaa. dokumentiga wuxuu sheegayaa iyo naqshada sidii ku cad beesha galmaax ambareematan iyo wacdaa cismaan inay xaduudku leeyihiin magaalada Muqdisho. aniga ma ahan jeebkayga ma ahan dokumentigaa sheegayo. akaas waa ku qoran tahay magaalada Muqdisho wacdaa cismaan mataan cabdulle oo matalaayo beesha galmaax. haye xaaladda markay sidaas tahay dhib ma jirin. sidaasay ku soo socotay. saasay dokumentiga uu sheegayaa. saasuu u cad yahay. markaa qoraalka aasatid oo qoraalka akhrisatid waxaa arki karaysaa oo la raba ayadana in la xuso beesha murusade. qoraalkaa muujahayo waa kaas ayagana qoraalkaa muujahayo beesha murusade waa taas murusade waa kaas. waxay noqon kartaa walow naqshada ay soohin ku yihiin Muqdisho wacdaa cismaan iyo mataan cabdulle haddana beesha murusade qoraalkay ku jirtaa. waxay noqon kartaa nambarka 3aad. maxaa la yiraahdaa marka maxaa la dhihi jiray maxayse tahay maxaa haddana la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa xamar iyo xamarday. xamar iyo xamarday. xamar wuxuu u qaybsamaa qorax ka soo bax iyo qorax u dhac. suuqa boondheer iyo shibis yaasa balaagarey jiray yaa caanaha muxuu ahay xaabada qoryaha cooska
yaa keeni jiray beesha galmaaxaa keeni jirtay oo mataan cabdulla hoggaan u yahay suuqa weyn oo ansalooti caanaha qoryaha cooska hilibka xoolaha yaa keeni jiray beesha wacdaa cismaan iyo inta la degan waxaa su-aal ah oo markii arrinta saas ay ahayd oo qoraal dukumenti ay tahay la haayo aan saas u hayno horena dowladda cabdiqaasim aan u qeybinay meel walba aan geynay oo qabo aan geynay muxuu ahay unisom intay dalka joogtay dacwo goboleed sidaas hadda xamar ka socotoo kale ka dhacday aan u dhiibnay kabuka ninkii la dhihi jiray oo un-ka madaxdu ahay kabuka iyo dadkii markaas lagu casuumay martiqaadkaas markii la wada hadlay qolo walba oo ka soo qeybka shirkaas ee sheegatay xamar wacdaa cismaan waa istaagay markii la yidhi istaag uu istaagay wacdaa cismaan waftigiisi matalayay waxay yidhaheen annaga hadal ma qabno doodna ma qabno sida dadka ay yeeleen camal ma nihin dukumentigaana wadanaa kabuuki naga qabo kabuuki waa loo dhiibay dukumentiga isla markiiba waa fadhiisteen way isfiiriyeen way akhriyeen way fiiriyeen way gidgidiyeen kabuuki waa istaagay wuxuu yidhi wacdaa cismaan istaag wacdaa cismaan waa istaagay wuxuu yidhi kabuuki wacdaa cismaan dukumenti caddeehaya magaalada muqdisho asaga iyo ciddi la leh oo deegaan leh oo qoraal 1992 ilaa 93 inta ku heeyaa yaa kaloo haysa dukumentigan oo kaleeto waa la waayay xashaakulullah arrinta saas waaye saasayna tahay saasayna dhab u tahay waxaa su-aal ah dadkii loogu yimid meeshaas gobolka banaadir ee xamar iyo xamardaye ahay oo taariikhdooda warqadan ku lifaaqan naqshadda oo 3 beej markaa akhrisa aad fahmaysid qabiilada si usoo kala horeeyeen la kala dhigdhigayo ilaa ceel wareegoo marka iyo bimaal xaduudkiisa la qoray maanta in ay sidaan aragna ay wax u dhacaan aad iyo aad aga xunnahay wax laga xumaado oo laga xishoodo waayo nidaamkaas hadda jira aan iraahdo marka dadkii loogu yimid oo xamar iyo xamardaye ahay dadkii xamar weyne waa degan yihiin xamardayena waa degan yahay labadii xamardaye qorax ka soo bax iyo qorax u dhac sidii caanihii iyo hilibkii iyo cooskii iyo xaabadii u keenaan sidii suuqyada u sabalaay gareeyaan sidii u soo buuxiyaan sidii u nool yihiin sidii u degan yihiin maxaa keenay in la inkiro maxaa keenay in la xusi waayo maxaa keenay xushmad darradaas maxaa keenay xaq darradaas aan fiirina ayadana su-aashaas jawaabteeda 1990 iyo kowdii amba 89 aan iraahdo 1989 dhibaatooyinka jabhadihii dhacay dhibaatadaasna waxaa keentay anigu dowladdan u shaqeeyayo xog ogaalaan u ahay dhibaatadaas waxaa keentay muddooyinka ugu dambeeyay dowladda xooga badneed oo tooradda ahayd dadkii deegaanada iyo goofleyda iyo dadkii in la caburiyo oo shuqul beel qabyaaladeed lagu caburiyo iyo waxyaalo badan oo hadda inta aanan ka sheegi karin oo aanan rabin Soomaali waxaas inaan la sheer gareeyo dib ugu laabto ayaa magaaladii ka dhacay taas waxay keentay jabhadihii iyo wixii dhibaatooyinkii magaalada dad US liira inay soo galaan ayagoo didaayo oo ka yimid gobolada waqooyi ka yimid iswata guuxaya dhibkaas ka dhiidhi dhibkana dhib jiro ahay oo astaahilay in laga dhiidiyo waayahay 1991 arrintaas dhacday nin walba Soomaali waa ogyahay maxaa ka dambeeyay oo la dhaxlay way hadda waxa la dhaxlay waa waxa maanta socdo waa waxa keenay shalay sidaan saxaafadda ka fiirsahay mursal ra'iisul baarlamaanka golaha shacabka inuu gobolka banaadir maqaamkiisa madaxa ka ruuxo oo saas yiraahdo oo diido hor istaago waxaa keentay xaq darrada
cadaalad darrada ku tumashada caburinta ee sameeyeen beelihii isku heebta aan sheegahaynay ee xamar soo degay inay dadkii deegaanka ay caburiyaan hadduu waqooyi yahay iyo hadday koonfur tahay iyo haddii xamar weyne ay tahay in la dhibaateeyo in la kufsado in la baabi'iyo in la dilo in la dhaco intaasoo xaqdarre waxay abuurtay mursal inuu maqaamka xamar saas ka yidhaah mursal maqaamka xamar muxuu ka sheegi karaa waxay salku leedahay asaga ma ahan dembiga waxaa iska leh kuwa 1991 culays jiri ka dagaalamay ee markaas dadkoodii ku soo jeestay iyo deegaankii welina howsha ka wada soo jeedin talo waxaan soo jeedin lahay beelaha mudulood gaar ahaan xoogga mudulood waa is yaqaanaa xoogga muduloodow qaabka u dhaqmaysa jooji qaab hufan ma ahan qaab walaalnimo ma ahan waxaa weeye qaab aan ku qiyaasi kara galabta inaa idhaahdo george floydkii halkan qoorta loogu istaagay ee ican brief usoo dhahaya dhintay sidaasoo kalea dadkii meesha walaalihiin ugu timaadeen qoorta aga taagantihiin waa mucjiso taasaa kaafgaraysay amba sababtay muxuu ahaay mursal inuu maqaamka muqdisho madaxa ka ruuxo oo diido waxaan soo jeedin lahay xoogga mudulood ee duulaanka ku yimidow oo walaalihiis u yimidow walaalaha caburinta ka dah walaalaha aga dambey howsha xaqa ha ku tumanin xaqdara meel laguma tago xaqdara ilaahay weli uma ahan caburinta ka dah koonfur iyo waqooyi labadaba caburinaa ku haysaa waa galmaax iyo wacdaan cusmaan caburinta ka dah adoo doonayo labadan beeloo meesha degan oo aa caburi haysid adoo doonaya adiga inaad wax sheegatid tan kale waxaa mar walba xoogga muduloodu ku dhawaaqdaa xamar anigaa iska leh xamar anaa leh war horta ilaahay aan ka cabsano ilaahay aan noqono war lahaasho yaa wax leh ilaahay wuxuu leeyahay aayadda ugu dambaysa suuratulmaa-ida lilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa fiihinna wahuwa calaa kulli shayin qadiiru war ilaahay aayaddiis maa laga hor imaaha ilaahay halkaas wuxuu ku caddeehayaa dhulka 7 arle iyo 7 samad iyo waxa ku dhex jira ilaahay wuxuu leeyahay anaa iska leh anaana qaadir u ah anaa maamulkooda gacanta ku haayo cid ila sheegi karta male markaa leedahay anaa wax leh horta yaa la dhihin walaxaan leeyahay waa deganahay walaalkay deganaa ugu imid walaalkayaan kor degay waa haakada afka ha la qurxiyo horta alla ka dheeraashada ha la joojiyo taas waa midaas wuxuu yidhi shalaya ood xumeed haddaa orod xun tahay war waxaan ku noqohayaa talada hadda maanta meesha ay taagan tahay in mursal iyo kooxdiisa ay u qoondeeyaan gobolka banaadir 7 xibnood nasiib darrada waxay ka timid cadaalad darrada xoogga muduloodow adiga aad sameehaysid walaalaha aad ku sameehaysid meeshay ka timid in quursigaas dhaco in idabdarraas dhacdo in gefkaas oo dhaco meeshay ka timid ilaahay ha laga cabsado xoogga muduloodu isku xishoo ilaahay ka cabso walaalaha ka daa caburinta walaalaha ka daa tumashada walaalaha xaqooda ongolow xaqooda markaa ongolaatid ayuu warka hagaagaya intaas markaan idhaahdo waxaan rabaa taariikhda ayada isqorayso lama qoro ayada isqorayso been ma sheegto documenti saas markaan u hayno annaga ma qorin documentiga ma jirin hataa intiina hadda joogtay aniga iyo haakada wax joogi ma leh waa 1912 yaa jooga qofna ma joogin waa 100 sano iyo 107 sano waay hal qaran iyo wax la jiro waay qof joogin uma jiro documentigana waa kaas aniga ma dhihin saas wax u qor waxaan talo ku soo jeedihaa marka gobolka banaadir maqaamkiisa gobolka banaadir
laba kun iyo shantii aniga xamaraan joogay gobolka banaadir ku-xigeenadiisaan ka mid ahay dowladdii cabdiqaasim xog ogaal badanaan u ahay wixii dhacay iyo waxa jiro iyo xoogga mudullo qaabka uu adeegsado oo wajaho oo khaladaadka oo galaayo walaalihiiska galaayo hadda inta inaan ku caddeeyo ma rabo ilaa heerkaas inaan galo ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan wax ka taabto qaabka maqaamka mudullood dadka inaan la sheer garayo qaabka gobolka banaadir sidaan sheegay banaadir waa qorax ka soo bax iyo qorax u dhac iyo xamar waxaa ida xasuusiha oo taariikhda ka mid ah markii la gaaro sanadka dadkii zamankaas ee guruumo ulo intay qaataan ay cayaari jireen sanadka wacdaan wuxuu ka tegi jiray ceelgaabtii dhulkaanoo ka soo bixi jiray balabaladoo soo mari jiray biyaasadoo imaa jiray xamarweyne halkaas waxaa ka raaci jiray bandhabow iyo wixii lamid ah waxay aadi jireen danjirka dahsoon iyo banaankaas ex barlamaan meeshaas mataan iyo galmaax iyo ka soo hoobi jiray ayagana halkaasaa lagu cayaari jiray cayaaraha aad soo gaarteen oo aad aragteen asalkooda sidaas waay tale waxaan ku soo jeedi lahay dadka waa la dhibaateeyey siiba dadka xamarweyne iyo shangaani waa la dhibaateeyey waxaan hayaa waan xusayaa heeskaas ma dhaafayo waxaan hayaa oraha dhahayso shangaani leela sheega maayo shilkaba shan ha iga reeba miyaa saas ama war shangaani ilaahay ka cabsiyaa shangaani waa la deganaa hortaa niman shanta ashraaf la yiraahdo aan naqaanaa deganaay iyo afarta xamarweyne dadka ha isxushmadeeyey dembiyaa la galay kufsiyaa dhacay jirdilaa dhacay dhaqan xumaa dhacday waxaasoo dhan dadka ha laga maslaxo cuqubada way socotaa waa degi la-ana wayna adagsasaan ku degno waxaan usoo noqaa intaas markaan tale kusoo jeediyo maqaamka banaadir maqaamka banaadir 2005tii dowladda cabdiqaasim markay gabagabada ahayd oo tii cabdullaahi yuusuf ee timid waxaan dhisnay waxaa la magacaabay guddi 5 professor ka koobma oo aan xasuusto magacyadooda ilaa waxaan ka hayaa hal iyo labo waxaa ka mid ahay doctor booda ka mid ahay waxaa ka mid ahay professor maxamed faarax jimcaali iyo 3 kale inta 5 ahay waxaa loo saaray xamar u soo dhisa maqaam waa 2005tii ogaada dokumentigeeda waa kaas waa qodobeysan yahay waa 35 qodob oo nimankaas barsooriinta ee diyaariyeen oo haddaa akhrisid aa cajibaysid taasna waa warqadii lifaaqi ahayd ee baarlamaanka cabdullaahi yuusuf waagaas jiray ee uu ku ansixayo ku ogolahay inay sax tahay waxaana saxiixay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ku-meel gaarka ah cismaan cilmi boqorraa saxiixay waa dukumenti gobolka banaadir laga sameeyey 5taas professor ee sameysay haddaa akhrisaan waa cajibaysay guddigii la dhisay markaas waa dhisinta waa jaan go-an tahay xubnaha 64 ahay maanta waxaa leysku hayaa 13 hanaloo sameeyo oo tuugtan baryootan waa la baryootama maxaa geeyey shaqaba kuma lo gobolka banaadir ha la dhiso dadkeeda ha dhistaan ha loo daayo baarlamaanka federaal waa dowlad waay gobolka banaadir markii oo la dhiso oo waxooda is doortaan oo waay gubernatooraha markas madaxtooye looga soo magacaaba waay shacabka ha doortaan degmooyinka ha laga soo yimaado xubnihi ha la diyaariyo kan waxaa ku diyaarsan oo ku cad 64 xubnoodaa la sameeyey markaas qaylina kama jirin deegaanka waa laysku oggolaay si kasta ha loo kala bato laakiin waa laysku oggolaay wax buuq kama jirin waxa maanta socda ma jirin laakiin nasiib darro wixii ma shaqeyn waa lagu kala tegay laakiin waa kaas waa jiraan dokumentiga waa yaala gobolka banaadir maqaamkiisa bilaa calaykum maba ahanba sidaa hadda wax u dhigaysaan war maxaa ka galay mursal iyo golo shacab iyo golo shacab consensus waxay ku leeyihiin confirmkaas yar inay confirmaariyaan laakiin ayadoo dhisan waa in loo keenaa waay
ما وحدا قبل كحول ليه لو مقام مرون كمجرو مرون كل جلها ما قرن كرن أن ميلو كسر لو مقام وليه مقام وفدرال جوفرمنت أما دولة ده مقام واللوكال جوفرمنت وقبل كاسكالي ديجان كاسكالي سيدا حتى أنك شيكي حمر يا حمر دي وديجان ودولة ده هوس يجارنر كي وحود أسوتان وحودنا أيجار دساي أنت دقمة إيكا كونتي كدساي دقمة أنت لو كونتي أو مركز حسابتي ميزانية يكون بس كريس أنت أيا لوجو سميها وعلى بالمرسية هاي اسمها حمر من الدقيسو أنت السلاس وحلو وجهايو وحنكون صوت تلجيدي هنا حليس كل لابتو waxa adiga leedahay oo marti ah ka noqoto cadaalad darra ku jirto adiga iska le marti aan ka noqohay miya no way waxa marti aga noqohayso mursul oo madaxa u ruxayo oo kuba kale inta la leeyahay beel hebel diidan oo ku raacsan asaga la leeyahay waxa keenay adaa keenay xoog mudulada adaa keenay adaa kaas galay لمد واي كوبا كوفر أنا كورك إيجا فرديو أو شارع عالش يقول دلاي لمد واي حبي اسمه دانتان أنت نورال كيس كورك أجا فرديو والله أصل يقول مسوجا يقول حمر حليس كل لابتو حمر إرادة لانك كلو قبيلة دواجب سافو 4.5 وحبالوها أوكي حمر إرادة حد شيء ولقيته ومقال هراب مقال هراب ومقال هراب بركي والو دقيقة هاي والو سود دقيقة وين التهاي هرابنا وحبك إنه كل ليه إلى ما هن لكن هرابك الأرك جروا إنه هذا هراب قدرين له أو مدن هراب بحر أو ورابع أو ضد عنايو خاص هراب لما نقول كراني الله intaana qaylinin meel xil xaalada tagin iyo in ka dhicin oo bilaay aan dhicin hiraabha istawa qabto gaar ahaan mudulood gaar ahaan xoog mudulood xaajada meesha ku wadan ka joojiya gobolka banaadir ha laga shiro gudi degdeg ha loo saaro gobolka asaga ha isa soo dhiso ha isa soo doorto ha ismagacaabo asoo dhisan xubnihiisa oo laga soo bilaabay degmooyinka laga soo bilaabay ilaa gobolka wuxuu tafatiran oo sidaas oo kale u qodobeysan baarlamaanka iyo mursul iyo wixii markaas meesha joogo consensus waa laga qaadi karaa confirm sida warqadda cover letter kaas bariye in muxuu ahay bacdama wixii federal eegay markaas waxaan dhihi karaa maqaamka muqdisho matalaadiisa aqalka sare markii waa dhisnaa jaa waxaan ahay dowlad madax bannaan oo hogaamiyaheeda iyo meeyarkeeda iyo waxeeda iyo golaheeda iyo waxeeda u dhisan yihiin oo shaqaysataan ahay laakiin hoostaga dowladda federaalka la shaqeeyo ma aan in aniga mar kasta oo madaxtooye villa Soomaaliya laga soo magacaabo no way ma aan taas waa ilaga baxa markaas waxaa la raadiyaa oo saan isku soo dhisno waxaa la raadiyaa maqaamka muqdisho iyo muxuu ay sheeg matalaada muqdisho iyo aqalka sare markaas aan raadi karaa hadda waxa hadda wadido qasaysid waxay kugu waajibisay fiiri waxay kugu waajibisay mursul inuu saas ku yiraahdo akhay mursul xamar muxuu ka gooyaa uquba meeshaas ku jirto عقوبته waxay hari kartaa marka lees ongolaado dadka xaqooda loo ongolaado dadka walaalnimada lees muujiyo lees ixtiraamo sidii loo kala horeeyay lees ku ixtiraamo dadka loo gafay muxuu ahay u badan yihiin dadka reer xamarka aan ognahay waxa lagu sameeyay muxuu ahay laga raali geliyo yani dadnimo meesha ay timaad laakiin 1991kii qababacda iyo dugtii ayaa wali lagu jiraa ma laga baxay hadana la noqonin oo ilaahay loo tooba keenin oo dadka afis laga dalbanin oo dadka xaqooda la ongolaanin oo dadka madaxa lugta looga haayo laga qaadin oo walaalnimada leesu ongolaanin iyo un eena noqonin saana lagu jiraaya waxa waaye waxa ku duraysiin
sida hadda u hortaagantiin mursal inuu idin yidhaaha saas banaadir nasiib dardaa fiiri foolxumadaas waxaas mana qabato laakiin xoogga mudulooda ka shaqeeya sida badan kuwa kaloo aniga ugu fadhiyana waa aamusan yihiin kuwa korka aniga iiga fadhiyo oo marna idilaayo waa aamusan yihiin xoogga mudulooda saas wax u qasaya ma garan miyaa ma ogi ma kasi karno marka ilaahay aan ka cabsano hadalkayga waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo cadaalad aan ku dhaqanno ilaahay ha laga cabsado toobakeen ha la sameeyo ha lees cafiyo gogol ha la dhigo muqdisho ha loo daayo taladiisa iyo xaaladiisa dadkii loogu yimid waxyaraan soo qaada waxyar waa muhiim waay oo xoogga mudulood oo sameeyo dowladdii cabdiqaasim duqi magaalada wuxuu ahaay nin mataan cabdulo galmaaxe gobernatooraha wuxuu ahaay nin abgaalaho daa-uuda oo cali ugaas u ahaay ku-xigeenada cabdiqaasim wuxuu yihi isaga madaxweyne ahay ku-xigeenada hala soo dhiso markuu saas amray wacdaan waa ku jiray tartanka muxuu ahaay inuu noqdo ku-xigeenada kan ugu firfircoon inuu noqdo ayuu ku tartamaya xaqoona u lahay una leeyahay galmaabe wuxuu leeyahay qaybteedii kaleu wacdaan leeyahay okay meeshaas markii ay joogto cabdiqaasim amre ha la soo dhiso magacyadan waa sheegaya wax dhintay wax nool cali ugaas daahir dayax janaal jilicow cabdullaahi geedi shidoor maxamed yelixow maalin waxaa weheliyay cabdullaahi muuse xuseen oo meeyarka ah daahir dayaxna wasiirka arrimaha gudaha dowladda cabdiqaasim cali ugaasna gobornarka gobolka banaadir waay u fiirsada hadalkaas cabdullaahi geedi shidoorna wuxuu ka socdaa waa nabadoon guud waxaa loo socdaa intaas in la yidhaahdo cabdiqaasim bacdamaa wacdaan uu ku jiro tartanka ku-xigeenada weliba xubinta ugu firfircoon in la yidhaahdo cabdiqaasim laga dhaadhiciyo wacdaan annagaa mataleyno anaa wakiilka u fiirsadaa de waxaan sheegaynaa been ma aha wax dhacay waaye dadka qaarna waa nool yihiin dadka aan magacyadooda tiri qaarna waa dhinteen wixii dhintay allah u naxariis wixii noolna cafi iyo masaamax laakiin waa sheegaynaa waxaan u sheegaynaa waxaas waxay dhashay waxa hadda socda mursal madaxa inuu ruxo banaadir dhismihiisa waxaa dhacday inay yidheen nimankaas cabdiqaasim mudan madaxweyne wacdaan annagaa ka mas-uul leh ninkan ayaa ku-xigeenka booska wacdaan ka dhigaysa ninkan waa maxamed yelixow maalin allah u naxariisto ninkaanaa ka dhigaysaa boos bal u fiirsada hadde gobernatoorihii ayaga waay waa xoogga mudulood meeyarka ayaga waay waa xoogga mudulood wacdaan waxaa loo diidan yahay ku-xigeen inoo noqdo waxaa laga dhigi rabaa xoogga mudulood muxuu ahay maxamed yelixow maalin cabdiqaasim ilaahay khayr ha siiyo ninka wuxuu yihi liwaax ninka mana og ninka ladan og cabdiqaasim cabdullaahi muuse meyrka waa fadhiyaa isaga bacdamaa nin galmaax oo yahay wacdaanku ma degdegi karo wuu ka xishoonhaya waa ka xishoonhaya xashaa kulullah barkeed deegaanaa la isla yahay xaqiiqdii dadka lagu tumahaya ay isla yihiin wuu ka xishoonhaya cabdullaahi meesha wuu fadhiyaa cabdiqaasimna hadlay wuxuu yihi war anigu dowladdii maxamed siyaad 5 jago wasiiraan soo qabtay wasiirka arrimaha gudaha ugu dambeysay wasiirka arrimaha gudaha saa ogtihiin dukumenti wax hore iyo wax dambe dalka oo leeyahay xog ogaal u yahay waxaa idiin sheegaa register weyn oo madaxtooyada yaalla wiil Soomaali aan ku arkay gobolka banaadir sidii loo soo kala horeeyay registerkaas Talyaani ku qoray hadalkaasi fiican u dhageysta cabdiqaasim salaad xasan ayiri allah khayr siiyo
waxaa ku qoran oo yidhi ma jiro yidhi mana ku qorna mana ka arkin nin wacdaan cismaan aga soo horreeyey amba hiraabe amba hawiye ee gobolka banaadir aga soo horreeyey ma ku qorno waana runtiis waay waxaa nagu soo xigay galmaaxa ahayd oo annaga aan ku soo dhoweyn sidaas daraaddeeduu yidhi galmaaxna waa kan waa degan yahay gubernatoriyaa tihin meeyarkaa tihin ma waxaa u diidaysiin walaalkiin inuu ku-xigeen noqdo taas waxay itusaysaa yidhi cadaalad darro iyo walaalihiin inaad ka xoog badan tihiin inaad ugu tumataan oo hadda hashooda geeli siinka dheer ee daaqaysa wallahi cabdiqaasim saasuu yidhi wax kale ma dhihin hasha wacdaan cismaan siinka dheer ee hadda daaqaysaa wuu yidhi waa la soo kala tegey cabdullaahigi meeyarka ahaay oo aniga iga xishoohaye oo wacdaanka xishoohaye oo wax ila waday ayaa la weeraro waxaa la yidhi haddii aad maxamed yalaxow magacaabi weyso ma kalo shaqayhayno waa ku isdulaarahayna annagoo ah xooga mudullood way cabdullaahi warka waa ii sheegay taloona iigu daray wuxuu yidhi xildhibaankaada cumar islaam allah u naxariistee nin walba waa yaqaana baarlamaanka ka mid ahay allah oo geeriyooda allah u naxariistee ayaa markaas xildhibaanada carta ka mid wuxuu degan yahay hotel lafweyn wuxuu yidhi xasanow warqadahan muxuu ahay warqadihii aa qeybisay warqadahan waa qeybiyey ana horaa u qeybiyey waa idin sheegay horaa u qeybiyey gobolka banaadir subarloogadiisa aan ku sheegahayna annaga iyo galmaah horaa u qeybiyey waa taas waxaan ku qeybiyey daahirdayaxaan siiyey cali khaliif galleeraan siiyey cabdiqaasinaan siiyey cabdalle deero waan siiyey waa qeybiyey warqadahan aniga waa ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu